bajaajada 6 saac waxa gacan siinaysiin dhaweeyaha lagu daro leemo wada fariinta socoto ya dhaweeyaha lagu daro way mo waxaan u leenahay bajaajada waxaan u celinaa dhaqanka way ana ku sheegay waxa jirta dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo xilliga habeenkii ah bajaajka ku shaqeysan jiray 6 saac wixii ka dambeeya way ku shaqeysan jireen hadda shaqadoodu way soo afjarmatay taas waxa la leeyahay sida dadku isla dhaxmarayaan ama waxyaabaha dadka ka dhex guuxayo in fursad la siinayo gaadiidka habeenkii shaqeeya la yiraahdo dhaweeyaha marka dabcan waxay dadku ku dhaliilayaan in gaadiidkaasi fursad la siiyay dhalinyarada habeenkii ku shaqeysan jirtay bajaajkana shaqadoodu meesha ay ka baxday bajaajada 6 saac waxa gacan siinaysiin dhaweeyaha lagu daro leemo wada fariinta socoto ya dhaweeyaha lagu daro way mo waxaan u leenahay bajaajada waxaan u celinaa dhaqanka way ana ku sheegay baawurkan dhaweeyaha la yiraahdo looma ogolo jagboontiida qaar inuu dhaafo meelaha qaarkood meelay bajaaj marto mari kara laamiyada kama degay dhaweeyaha meelaha xaafadaha bajaajku waxaan u joojinay ilaaha idinku dhaarshay habeen madow buundada dusheedii oo 6 bajaaj ay fadhiso oo gabdha Soomaaliyeed oo 7 ah fadhiyaan aan qabtay aan ku maxaa sameynaysiin sabab waa 10 saac weyn howlgala ka imid waxay jir guriyana laga soo xirtay meel u hooyina weyn war oo baaristi dhan basaas ma ku etlaatay ha maya weydiye gabdhahan waay maya hoteela ka nimid aroosan aadnay kana aadnay war 6 saac wixii ka dambeeyay horta yaa shaqeysta Soomaali 6 saac wixii ka dambeeyay dukaankee laga shaqeysta yaa adeegta haddii hooyo Soomaaliyeed ay adeeganayso dugsiga ilmaha markay ka yimaadaan quraacda siixday baxdaa anaga dhaqanka ku saleynaynaa quraacda dugsiga markay ka keenaan ilmaha ay siiso ay dugsiga u laabtaan iyada baxdaa suuqa aada haddii orax subaxii ay ka baqda galabkii adeegata haday ka baqdan bacdul maqrib ay baxdaa suuqa aada 3 saac weyn wixii ka dambeeyay waa ka imaada wixii 6 saac ka dambeeyay bajaaj horta qof nool oo adeegta waa mooryaan askari roonda ku jira iyo nin raba oo ahlu qaylaad marqaan meel ku soo marqaan xaafad u hooyanay marka dadka marqaanka waxaan leenahay sokoraaba ku dhacday ayaga fadhi ku daahay horta ha aalmintayaan ilaa guriga caafimaadkooda u danaynayna taasna processkaas dhaqanka xumaanaya u joojinay muddana waaye intii howlgalkaas ama kaab socdo waaye wixii ka dambeeyay hadan ka helno muhiimadda aan ka leenahay oo booliiska helo researchka aan helno waa fasaxayna laakiin arintaas u celinay